السلام عليكم tirooyinka iyo saamooyintooda nolosha waa sixirka waxaynu ku jirnaa xilliyo kamid ah xilliyada ugu adag ee qofka muslimka ah noolaado iyadoo ay adag tahay kala saarida muuminiinta iyo munaafiqiinta kuwa munaafiqiinta oo sameeya ficilo xunxun oo ka soo horjeeda diinta islaamka dadka noocan ah ayaa ilaalana ka haysta dad ama wadan qabiil ehel ama urur u dhow oo ilaaliya ceebahooda qarsoon ee mudnaa in banaanka la soo dhigo si ay muslimiinta uga feejignaadaan ficilada xunxun ee ay sameeyaan munaafiqiinta dalalka islaamka degan yihiin waxa ku badan dhaqamada lidiga ku ah diinta islaamka ciqaabo aad u xunna laga dhaxlo noloshan dunida iyo midda aakhiraba sixiroolayaal faalilayaal indhasarcaadayaal dad sheegtay in ay quraanka ku daaweeyeen dadka uu ku jiro jinka iyo kuwa kale badanba oo ay kamid yihiin ururo lagu sheegay in ay yihiin argagixiso islaami ah waxay kamid noqdeen kuwa fool xumeeya dhaqamadii wanaagsan ee ku qotoma diinta islaamka oo aan la ogoleyn xiriir lala sameeyo jinka iyo garab weydiisashada iyo isu dhiibada awood aan ahayn awoodda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xiriirka lala sameeyo awoodaha qarsoon ee kamid yihiin jinka oo aan diinta islaamka ogoleyn ayaa u horseeda dadkaasi ay kamid yihiin saaxiriin inay ku dhacaan shirki weyn iyo la wadaajinta cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan Allaha weyn ee caalamka abuuray ka ahayn iyagoo noqdo ugu dambeyn kuwa ku tiirsanaada awoodaha sharka leh ee hore inoogu digay ama inoogu diiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo Nabi Maxamedba noloshooda dunida iyo midda aakhirana noqdo kuwa dulinimo u sugnaatay dadka qaar ayaa laga dhaadhiciyay in xanuunada qaar ay keenaan jinka taas oo qofka ku kalifaysa in uu caafimaad u helo in uu u tago kuwa la tilmaamay inay xiriir la sameeyaan jinka qofkuna ku heli doono caafimaad taasi waxay ka soo horjeedaa in xanuunka iyo caafimaadkaba uu Ilaahay keeno bini aadamka ku yahay imtixaan si loogu kala ogaado kuwada ku toosnaada jidka wanaagsan iyo kooda ka leexda Allah subhanahu wa ta'ala marna ma diidin in qofku ku dadaal sameeyo ama uu ku dadaalo si uu caafimaad u helo ay ugu horeyso bariyadiisa maanta waxa jira xanuuno badan oo aan daawo loo helin laakiin taasi ayna ka dhignayn in daawadu jirin ee wali inaga ayaana fahmin daawadu xagga ay ku jirto oo Allah subhanahu wa ta'ala xanuun kasta daawadiisa ayaa loo soo dejiyay ayuu yiri waana waafajin alle wali anaga ayaanu Ilaahayna waafajin nasiib darro maanta shirkada waaweyn ayaa dhaqankoodu wuxuu noqday in ay abuuraan cuduro iyagoo adeegsanaya cilmi loogu talagalay in loogu faa'iideeyo bini aadamka halka ay la dagaalameen daawooyinka asalka ahaa ee laga sameeyay dhirta aqoontii daawooyinka asalka ahaa ee dhirtana ay dadkii kala dagaalameen si ay u faa'iido u helaan iyagu cudurada ay abuureen ayay u sameeyeen daawooyin uu qofku ku tiirsanaado ama uu kaalmaati ka dhigto cimrigiisa taasoo qofka ka dhigaysa in uu u dulmanaado shirkadaha waaweyn ee shaydaanka dhulku waqti aan fogeyn ka hor kama jirin xaaladaha noocan ah laakiin waxaynu wada ognahay isbedelada dhacay 150 sano u dambeeyay halka ay u janjeereen marka laga reebo qof raba in uu iska maahiyo ama is-ilowsiiyo waxa dhacaya kuna soo koobo kaliya in ay tahay horumar ay dadku gaadheen oo cilmi dhanka caafimaadka ah caafimaadka iyo xanuunada dadka ayaana noqday ganacsi aad u ballaaran oo laga sameeyo dhaqaale aad u fara badan xarumaha caafimaadka ayaana noqday meel ay dadku ku xirxirnaadaan oo ay ka soo helaan caafimaadkii degdega ah ee ay filanayeen maadaama xarumuhu ay yihiin halka uu ka soo raaco cudurka kale habdhaqanka noocan ah ayaana ku koobnayn xarumaha caafimaadka sheegta kaliya ee waxa laga heli karaa goobo kala duwan oo ay dadku ka tiirsan yihiin nolol maalmeedkooda isku xiriirinta tirooyinka iyo bulshadoodaba ayaa ahayd cilmi uu horay bini aadamku u gaaray sida xidigiska tirooyinku waxay muhiim u yihiin nolosha fahankeeda tusaale maalintii waxaynu xisaabsanaa tiro aynu isla fahanay oo ah 24 saacadood 7 maalin oo isbuucii ah 30 cisho ama 30 cisho oo bishii ah waa uun tiro laakiin noogu fadhiya micno aynu wada fahansanahay sidoo kale maanta waxaan isticmaalnaa tiknoolajiyad sida kombiyuutarada waaweyn ilaa kuwooda yaryar ee moobilada gacanta ah qalabyo kasi yaryar iyo qalab kale oo kala duwan muhiimna u ah xilliga nolol maalmeedkeena in aynu wada xiriirno oo aynu isu fahanno innaga oo dadka iyo qalabkan waxa fududeeyay waa tirooyin waa xisaab maadaama qalabka uuna lahayn luqad af sida bila aadamka sida daraadeed bila aadamku wuxuu abuuray luqado ku dhisan tirooyin oo ay isku fahmi karaan dadka iyo qalabkan ay sameeyeen in isticmaalayno Pythagoras filosoofkii hore ee Greega waxa uu qabay in tirooyinku maamulaan wax walba oo wuxuu aaminsanaa in tirooyinku leeyihiin naf ama waa ruuxe
sidoo kale leeyihiin awoodo sixir oo ballaaran oo ay ku fuliyaan amaradooda. waxa uu aaminsanaa in tirooyinku yihiin maamulayaasha fikradaha iyo walxaha, yihiinna awoodda ay isticmaalaan ilaahyada iyo shayaadiintu. waa fikirkiisa Kabbalah, cilmi ka mid ah cilmiyada suufiyada yuhuudda ee u fiirfiirsashada tirooyinka soo noqnoqda iyo isku aadintooda. waa sixirka ayaa maanta cilmiyada ugu waaweyn ee lagu barto tirooyinka soo noqnoqda, iyagoo caawimaad ka helaya shaydaanka, adeegsadana qaybo ka mid ah buugaagtii diimihii hore ay ka qariyeen dadka, iyaguna ku fitnoobeen adeegsiga qaybo ka mid ah kitaabkeena qur-aanka kariimka ah, oo xitaa ay ku jiraan dad sheegtay inay muslim yihiin laakiin ku fitnoobay tirooyinka qur-aanka kariimka ah ku jira. sidoo kale waxay adeegsadaan dadkaasi waa suufiyada yuhuudda ee buugaagta falsafada kala duwan sida hinduuga, buudhisamka iyo tirooyinka noocyadooda kala duwan si ay u ogaadaan waxaan bini'aadamka, jinka iyo dhammaan abuurka Allah subxaanahu wa tacaala ogaan karin. waa dhammaadka adduunka qiyaamaha iyaguna rabaan in ilaaha ay sugayaan uga yimaado ama ugu yimaado dhulka. waa masiixu dajaal si uu u hogaamiyo boqortooyadan ballaaran oo awood badan leh, ayna ku taamayeen dib u helidooda tan iyo dhammaadkii boqortooyadii nebi sulaymaan calayhi salaam. dadaal kastana waxay ku bixiyeen imaanshihiisa muddo ka badan 2000 oo sano, maadaama ay ka hor imaadeen sheegteenna in ay salbiyeen ama dileen masiixii runta ahaa ee u soo diray Allah subxaanahu wa tacaala reer bani Israa'iil ee nebi ciise calayhi salaam, kadib markii uu noqon waayey sidii ay filayeen. siduu nebigu naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatay inoo sheegay, inta uuna adduunkan dhammaanin waxaa imaan doona masiixii beenta ah ee ay sugayeen, imaanshihiisana u degdegi haayeen. sidoo kale nebi naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatay inoo sheegay in uu nebi ciise calayhi salaam uu dib u soo degi doono, uuna dili doono masiixu dajaal oo ah fitnadii ugu weyneed ee dhulkan soo marta tan iyo ummadii nebi nuux calayhi salaam. nebi kasta ummadiisa uga digi jiray fitnadan dajaatul cawar. maanta waxaan shaki inoogu jirin in ay soo muuqdaan badankood calaamadaha yaryar ee uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo inoo sheegay in ka badan 1400 oo sano ka hor, oo uu inoo sii sheegay markii ay soo wada muuqdaan dhammaan kadib ay soo muuqan doonaan kuwa waaweyn ee dhammaadka adduunka, oo marka ay midi soo muuqato kuwa kalena ay u furmi doonaan sida tusbaxa oo isku xigxigi doonaan. halkan waxaan rabaa inaan kugu soo bandhigo tirooyin lagu dhex qariyay nolol maalmeedkeena iyo dhacdooyinka inoo muuqda oo ay ka dambeeyeen dad toos xiriir ula leh shaydaanka. laakiin ka hor waxaan rabaa inaad ogaatid tirooyinka qaar waa iska tirooyin caadi ah oo aynu wax ku xisaabsano. tirooyinka qaarna waa fitno iyo imtixaan oo Allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay dadka si uu kala ogaado qofka doorashadiisu uu xorta u yahay, halka tirooyinka qaar lagu dhex qariyo sixirka noocyadiisa kala duwan iyo fasahaadka dhulka iyo dadkaba. noocaas dambe waxaa adeegsada gaalada iyo munaafiqiinta kuwooda barta isku aadinta tirooyinka si ay isugu dayaan ogaanshiyaha waxa dhici doona waa mustaqbalka, ama ay u diyaariyaan dhacdooyin isku xirxiran oo u fuliya qorshooyinkooda qaabka daran iyagoo oo adeegsanaya awoodaha jinka. qur-aanka kariimka Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inoogu sheegay tirooyin kala duwan, laakiin imtixaan ku ah nafteena iyo iimaankeena, iyo qaar ay iska caddahay xisaabtooda oo ka dhigan in dadku qaataan oo ayna waxba iska weydiin oo ayna isa sii raaraacin macnaha Allah subxaanahu wa tacaala ula jeedo tirooyinkaas, maadaama ayna sina u fahmi karin ujeedadooda rasmiga ah ama micnaha rasmiga ah ee Allah subxaanahu wa tacaala ula jeedo. sidaa darteed tirooyinka noocaas ah haddaan dhahno waan fahmaynaa, aynu ka sii dhumayno oo aynu ku sii fitnoobayno sida kuwa saaxiriinta iyo falaliyooda ugu dhumaan oo kale, oo ay u noqdaan addoomo shaydaanku gumaysto, maadaama micnaha rasmiga ah ay keeni karin ayaga bini'aadamka ah ku noqonayso in ay garab weydiistaan jinka oo ay moodaan in uu ka sarreeyo cilmi ahaan, sidaana ku sii wada dhumaan dhammaantood. Allah subxaanahu wa tacaala waa ka ku leh suuratul cankabuut aayadda 2